guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Somaliland ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta ugu sarreeya wasaaradda maaliyadda ee Somaliland taasoo uu horkacayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi kulankaasi oo saacada qaatay oo warbaahintu dibadda ka ahayd ayaa markii uu kulankaasi soo ilaaday ama soo dhamaadayna waxa si wadajir ah ula hadlay Dr. Sacad Cali Shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland iyo gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Somaliland maanta halkan waxaanu kulan kula yeelanay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada kulankaas wuxuu ka mid yahay geedi socodka diyaarinta miisaaniyadda oo isugu jirta wada tashi qiimeyn dood tala qaybsi ansixin nidaamkaas runtii ka mid ah jaranjarooyinku bay ka mid ah maanta guddiga shirkan isugu nimi shirkaas wuxuu u qaybsamaa soo jeedimo iyo su'aalo iyo talooyin ayuu qaybsamaa intaba runtii si fiican baan u soo dhaweynay iskuna afgaranay si fiicanna wuu noogu dhacay waxaan doonaa kan uga mahad celiyo guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka oo wada leenahay wada shaqayn soke oo runtii aad iyo aad qiimo badan oo wanaagsan runtii maanta waxaan u ballansanay wasaaradda maaliyadda wasaaradda horumarinta maaliyadda inaanu kala hadalno miisaaniyaddii 2021 aad bay u mahadsan yihiin horta sida ay u ajiibeen dacwadda waxaa kaloo noo dheer inaanu u mahadnaqnay sida fiican ee wanaagsan ee miisaaniyadda u soo faahfaahiyeen idinkuna dee saxaafad ahaan aad heli kartaan copy aad ku ogaataan sida tafaasiisha iyo faahfaahinta loo sameeyey runtii miisaaniyaddiina soo marayey waa tii ugu horreysay ee dowladaha hoose lagu soo daro oo mashaariicda lagu soo daro oo hay-adaha bangiga adduunka iyo wixii hay-adayna caawinaysay lagu soo daro isla markaana wadaagayaal loo sameeyo wasaaradaha oo taasoo tilmaamaysa in wasaarad walba meesha ay dakhliga kaga jirto iyo muxuu ahaa hawsha qaranka in si faahfaahsan loo sameeyo iyo runtii muujinaysaa miisaaniyadduna aad iyo aad bay u qurux badan tahay waxyaabaha aanu ku ammaanay waxaa ka mid a miisaaniyadda duruufaha dalka maanta jira oo dee xanuunkan safmarkaa kow ka yahay dhibaatooyinka ka jira gaadiidka iyo socod la-aanta dhaqaalihii inuu dee hoos u dhacay baanu arkaynaa haddana miisaaniyaddu waxay tilmaamaysaa koror guud oo 4.8 waa dadaal ay dadaaleen sidii dakhli ururintaas loo wanaajin lahaa annaguna waxaanu ku dhiirigelinay inay intaa in ka badan ku dadaalaan oo ay hay-adihii madaxa bannaanaa sharciga aan lahaynna sharcigooda loo doono dakhli ururintuna ay ka sii fiicnaato sidan imika ay tahay ururada saxaafaddu oo idinku dee koob ka tihiin iyaga laftoodana tixgelintoodii iyaanu siinay waxayna loo soo gudbiyey inaad heshaan wixii kaalme ee laydinku talagalay wayna ajiibeen horena waa loo bixin jiray line ministerkii qaabilsanaa arrintiinana waxa weeye in wax laga qabto oo iyaguna mas-uuliyaddeeda qaadaan iyaanu isla garanay runtii aad iyo aad baan u faraxsannahay maanta inaanu helno miisaaniyad tafatiran oo wanaagsan oo dakhlina leh isla markaana muujinaysa meel kasta oo ay waxooga runtii dee wasiirkana dulqaad badan buu sameeyey iyo wasiir ku-xigeenka iyo hay-adahan la shaqeeya sida wanaagsan ay noo 2 saacadood oo rubcu dhiman baan imika iswareysanaynay su'aalo fara badanna way ka jawaabeen su'aalahaasoo ilaa 20 su'aalood gaadhaya oo miisaaniyadda ku salaysan iyo waxyaabaha u baahan faahfaahin runtii way naga siiyeen aad bay u mahadsan yihiin waxaan isleeyahay maanta maalin ka wanaagsannahay xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarinta miisaaniyadda inayna jirin Idruus Maxamed Caynaan goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.